wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Somaliland Cabdullaahi Abakur Cismaan oo ku sugan magaalada madaxda gobolka dalxiiska Sanaag Ceergaabo ayaa waxa uu wasiirku kormeer ballaaran ku soo maray qaybaha ay ka kooban tahay wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Somaliland ee gobolka Sanaag waxaana markii uu kormeerkaasi soo dhamaaday saxaafadda la hadlay isuduwaha wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee gobolka Sanaag Xasan Axmed Cabdalle iyo barasaabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Cali Timbro oo halkaasi ka hadlay waxa uu ka xog waramay barasaabku baahiyaadka kala duwan ay qabto wasaaradda waxaana uu wasiirka ugu baaqay inuu dib u dhis ku sameeyo wasaaraddaasi waxa maanta noo yimi wasiirkii wasaaradda hawlaha guud wasiirkii wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka oo socod dheer ku soo maray wadada dheer ee magaranaysa roobkii waxyeeleeyay ee degmada gobolka Sanaag markaa wuxuu nagu yimi xafiiskii waan soo dhaweynaynaa wasiir ku soo dhawow insha Allah xafiiska iyo magaaladaba rabbil caalamiin wasiir waxaanu joognaa xaruntii wasaaraddii gaadiidka iyo horumarinta jidadka wadarka xafiiskeeda dhul ballaaran way haysataa waxaan u baahanahay horta in dhismaha lagu kordhiyo meeshan dayac tir bay u baahan tahay xaruntu hawl badan bay haysaa liisamada in la qaataa la rabaa marka gaadiidkan soo xidhno meel lagu ilaaliyaa la rabaa marka xarunta horta in wax naga qabatan waan doonaynaa talabaad wasaaraddu gaadiid ma leh waa garab rarto iska lugayaan wali iyadoo gaadiidkeena gaadiid laataana waa arin yaroo ma garanaysa mustaxaala marka wasiirtaana waad noogu soo dadaalaysaa gabagabadiina wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Somaliland Cabdullaahi Abakur Cismaan oo halkaasi ka hadlay ayaa ballan qaaday gaari ay yeelan doonto wasaaraddaasi waxaana uu wasiirku sheegay in sanadka 2020 uu bilaabayo dhismaha wasaaraddaasi baahida jirta ee xagga gaadiidka iyo dhismahana insha Allah waan soo dadaalaynaa magan kooda hadlayna sidii gobolka lagu keenin lahaa gaari qoorada Ireland fiicma gobolka Sanaag gobol ballaaran marka waxaanu garanay gaari fool daraafa oo xaajiyada oo double cabin ah in gobolkan la keeno insha Allah u dhaqsan keenayna kaloonu ka yar cabanayna anagu meesha wax xira ciidan way noqotay wasaaradana meesha leh marka ciidanka sida nogala howlgal lahaydeen in xirada noqoto xiradii gaadiidka oo dhow marka la keeno in ay halkan loogu ilaalin lahaa wixii dhismaana insha Allah waxaan ku daraynaa mustaqbalka dhow 2020 si loogu dhis lahaa xarun Saciid Mustafa Rashid Qurbawi warbaahinta Badcas TV Ceergaabo